maxaa kamaalow hooyada maxaa lahaa hooyadii waaye gabarta naagtana la joogtid anana weyn markaas waxay dhahay curud marka fiidiyooshan waxaan hooyada ka duubta meesha ma ka bixi kartaa maadaama hooyaday naag la qabo iyo ciyaal ay leedahay inta ceebtan ugu badanin marka muxuu isoo qoray maxaa lahaa ani qofka anaa qabo anaa aqaano beentan iga jooji beena sheegaysa maxaa dhaha been ma sheegaye qof oo kusoo wici karto meeqa qofa kuusoo qorto ku dhahday naagta waa naqaanaa ciyaala leedahay marka waxay dhahay maxaa lahaa qofka kusoo diray aabaha kusoo diray waa ogahay hanina ma ku dhalin marka xadaa hani way dhashay adina wax ma ku ogid hadda qofaa barato waayo hooyadeyna way tahay hooyadey markay tahayna anaa og hooyadeyna tahay maxaa lahaa bafiisyaal badanna waa hayaa cadaymo badan marka waa blokeeyey miga telefoonka markaas miga qabana block u saare balaayadan iyo waxaan kala ordaa waa arkay laakiin ma jecel inaan mar walba macnaha xaaskayga waa maradayda oo kale way ilmahayga hooyadood waa wax walba hadday meesha ka dhacaan mar jecel inaan ku degdega ma jecel cabdisalaan ahaan intii taqaana xaafadana deganay magaalada deganahana macnaha dadka jooga waa la weydii karaa may waa ku ogahay inaad ahayd anigu markii iigu kaa dambeysay ayadood aad iyo aad qof ka ciyaal jeclaay waa yaryahay dunida si ciyaarkeedu u jeclayd maantana waxay mare ciyaal ma dhalin inay dhahdo ma oga macnaha inay dhaweyso hooyadeed aad soo wacday taleefonkan ma aqaanay tiri waa hooyadeed ayada dhashay marka qofkan ficilada oo sameehayo marka aan aragnay waxaa noo caddaatay qofkan qof sixran oo wax uu sameehayo inaysa ogeyn ah hooyadeeda inkira tan iyo gabadhaas maskiinta lagu dheelayay iyo waxaan beenta iyo caasinimada dadka waalidkiisa uu dhageysan waayey iyo wax walba qof walba runta u sheega oo u dhibsahayo uusan dhageysahayn horta gabadhaan ehelay leedahay daday leedahay waa la iskala xisaabtama xaqiiqa waa taas la isku daymayo waa wax lagu wada xisaabtami doono ama maanta aad ama berri aad saameynta ay yeelatana asaga mas'uul ka noqohay ninka mas'uul ka noqohay asaga ma fahant waa gartay السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحاب شرفت له ومركلة إيام وقال عصب برتن أد إيجاد إنسان ولا كامل يبرأ هذه يدوم هالسنتي كسر دوادا مقالة يافلة حافظة أندشباري سيجارة هذا نسيت المامو وفين دروجت وبرتي عند الجناء وكله لانشري ويانا قاطي أنا جيو وجسك iyo rag badan iyo dad badan oo asxaabta kamid way wada garanayaan reer Yaafle si gudban oo salaamaya waxa dhinacayga fadhiya waa Cabdisalaan inaan ka hor dhaco ma doonayo isaga inoo sharxi doona laakiin barnaamijkan ka hadlaynaa ayaan rabaa inaan ka idin tilmaamo marka hore waa barnaamijkii Kamaal Abdul iyo barnaamijkiisi waxaanu joognaa gurigii reerka waxaanu soo booqanay reerkii oo kaamil ah caruurtii waa kuwan dhinacayga fadhiya idima maqna laakiin waxa inoo hadli doona insha Allah taala Cabdisalaan soo dhawo marka hore magacaaga dadka u sheeg bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdisalaan Cali Xaash waa gartay waxaan rabnaa bal barnaamijkii dhacay oo ninkan Kamaal Abdul gabar baa muuqaal kula jirta aabihiis baa soo hadlay hooyadiisa hadashay gabadhaada Najmo ayuu la hadlay adiga waa wada hadasheen odayga sababta ku kaliftay inuu muuqaal soo duubo waxa soo dhan bal barnaamijka noo dhexgal oo noo sheekay anon ka dhexgalino ka gogoynin waa maasanta Imraan aqyaarta dhan waa wada salaam iyo dhamaantood magacaygu waa Cabdisalaan waxaan ahay هاني مؤمن محمد من كذا هاني مؤمن محمد waxaan isqabnay muddo 25 sano ah waa gartay waxaan isku dhalnay 8 caruur ah 3 waa dhimatay laakiin 5 aan nool hadda ma sha Allah alxamdulillah waa gartay hani waa gabar walaashay ilmahayga hooyadooda isa badan aan u hayo aad iyo aad oo inta qiimo leedahay qiimo leh
ciyaalkeeda jecel ehelka jecel ay ahaa jirtay. waa gartay. adigu muddo laga jooga sanad iyo wax yar ama 2 sano ku dhowaad gabadha isbedel ayaa ku dhacay. waxaad moodaa in waxna soo dhex galeen. waxay bilowday xanaaq badan, dadka inay macnaha jarto, waa gartay. ehelka badan inaysan la hadlin, aysan waxba interest garayn. ciyaalka naftigooda in xoogaa aysa ashkuwen sidii hore isbedel macnaha ku dhacay. dadka xataa deegaanka ka fahmayna maxaa kugu dhacay yiri. muddo ka bacdi quraanna waa la saaray. muddo ka bacdi xoogaa maalmaha ka mida oo ahayd 27 bishii Oktoobar ma ahayd maqaan aan marahay. waxay naga codsatay inay aado. waa gartay. gabar walaasheeda oo degan Faransiiska oo idin la yiraahdo. iyada walaasheed miya? walaasheed. waa gartay. halkaas xoogaa madaxa kusoo dejay tiri. okay aan niri. walaasheed idil baa la yiraahdaa, waxay degan tahay Faransiiska. waa gartay. gabar kale la tan degan tahay Borlanga, magaalada Nairobi degan tahay. Borlanga. wiilo dhashay magaalada nala jooga. ama ka waqaana saaxiibkii weyn. على كل حال فرنسيسكا ماشي أنك سوقيني إن قبل أصبح دي وابحذي إن ماشي فرنسيسكا أنك سوقيني وحن كأرجني اسطنبول أيضا أو إن كان كمال اللي هي أو كسر دوي هايو أو اللي هي حاسكي جواي أو كليبك كل يدتك الدعوذين اسطنبول كرعي إن دتك مقالة جوجي ومدد أن يوتيوب كي وحي لقوا ذا محل عسانا marka calaa kulli halkaas aan nooga horeysay Kamaal iyo hadalkiisa. maalinkaas Istanbul gabadhii Faransiiska anaga noo aaday. Istanbul la tagtay. halkaas ku ogaatay. halkaas aan ku ogaanay. ka bacdi fiidiyadii daawanay waxaan aragnay meher afkuya ka dhacay oo 2 bilood iyo 3 bilood ka hor asna ah oo hana muumin ah. oo kaadi marka macnaha meherkan ma idinku maba ogeyn maba arkin hore loo ma arkin. aan kayna waxa soo dhan ma jiraan family ahaan. markii hooyadeed aabaheed ma nool yihiin kulli wax war ka haya lama walaalay aabaheed kulli xamar ay joogaan. marka markaan aragnay oo afgooyin oo ka dhac aragnay waxaan contact la sameynay oo aan raadinay si aan ugu sheegno waxaan waxa ay yihiin Kamaal aabihiis iyo ehelkiisa maadaama afgooy ay degan yihiin. nasiib wanaag rag saaxiibaday ah iska soo fariisaday oo reer afgooy ah iska fariis reer afgooy isla markiiba gartay. Kamaal aabihiisa layla hadashay lambarkiisa leesiyo layla hadashay. waa gartay. oo adigana rag ku garanaya. aniga rag yaqaan asiga rag yaqaan. waa gartay. arrinkan u sheegay Kamaal aabihiis madax horta gacmaha saartay. dadkii dhan fajacay ku noqotay. arrinkaas dhamaanteen marka hore fajacay nagu noqday markaan clipka aragno qof walba oo na yaqaan ama ehelka macna wuxuu noqday qof oo dismoraal ah noqday. wax aan qaado weyn nal noqotay. okay ninka meherina marka aan u noqdo meherkan rabana u noqdo. meherka marka aan fiiriyay waxa fadhiya meeshaas nin aan sida adiga عمران كوا قانا أنا وقانا اسكو حافظها جرني. سيدا إن اسكو حافظها وهاي. اسكو هاي. هو هكذا. ولو مدة صدّن سنة كله وأنا كاس اسكو حافظنا. أنا قلت لي يرها اسكو حافظها. وأنا اللي جاي قان حافظ عند الجناء أساس أحمد نور هينا اللي يرى. أحمد نور هينا. واقرت. الشيخ وحميرها دين عيسى وحكارك أحمد نور وفدية. الشيخ مركو ميرك جديها أنا كليب كان في السدموكت. وصح. الشيخ مركو ميرك جديها أفر وحيالله قبلنا ميرك وكوها بدنا نقدر له وحيد وحافظية ولي جدي ها. اللي يرى هذا مؤمن محمد. مؤمن محمد وهنا أبيه واقعنا. وصدقه معنا. وصدقه. مؤمن محمد ماشي وقمت شذو. نكفدي اللي هو حمد نور. هيني. حمد نور أبا وديبا يقبل هنيه.
waa yaabnaan taasaan kula siyaab dada waxay leeyihiin marka gabadha aabaheedaaba dhiibay gabadha aabaheedaaba dhiibaa fiiriya kiliibka xataa dib ha loo fiiriyo shiiqa iyo kiliibka dhan hadalku waa wada clear inta uu socdo marka axmed nuur ninka la yiraahdo ee muumin maxamed iska dhigay oo hadlaana muusiga la saaray ma fiirsada kiliibka xataa dib ha loo fiiriyo codka axmed nuur ma la maqlayo inta kale walaa shiiqa walaa qof walba waa la maqlaa ma faham axmed nuurka naftigiisaan contacta la sameeyey waa axmed nuur aan aqaan hadda nambarkiisaan hayay 2017 markaa xamar tegayo xataa i yimid aan aragnay arrinkan dhalinyaradii kale xataa xanaaqda xaafada ahayd waa la wacay ala kulli xaal odagii wuxuu wacay axmed nuur lala hadashiyaa la yiri waa soo maha ninka hani aabaheed ha waa kan la hadal haye gabadha adiga soo nama siin astaghfirullah waxaan kaa soo hilmaamay cidda marka kamaal iyo hooyadiis iyo dadkiis ehelkiisa axmed nuur waxay ugu tageen xamara loogu tago gabadha laga doontaba markii hore kabacda odaga inta sheekooyinka sii sheegaya odaga kamaal dhalo aad u fiican waay maasha allah waan ugu dhacdo yiri inaad yartano xamaraan tagnay gabadhaan weydiisano waa nala soo siiyey annaga markaas waxaan dhahnay meherka haddaan ree afgooyanahay wiilka gurigiisoo ka dhaca imaa guriga marka adi noo imaa asaga laba noo kale noo yimi laba cunoo kale hor usoo wata marka ehelkiiba saas uga dhigaa micnaha hani ehelkeedi hadde hani ehelkeedu aabaheed muumin maxamed walaalkeed iyada la dhashay aad jooga xamar jooga hooyadeed makashee caliya xamar joogta markaas ma fiirso ciddaanu xamar ee gabadha ka dooneen axmed nuur sii hooye aabaheed hooyadeedna waa joogeen xaqiiqda marka la rabo waay intaas anigu waxaan u aamusnay oo waxaan walaacan iyo balaayadan iyo waxaan kale ordaa waa arkay laakiin ma jecel inaan mar walba micnaha xaaskayga waa maradayda oo kale waay ilmahayga hooyadood waay wax walba hadday meesha ka dhacaan mar jecel inaan ku degdega ma jecel ana cabdisalaan ahaan intii taqaana xaafadaana deganay magaalada aan deganahana micnaha dadka jooga waa la weydii karaa may waa ku ogahay inaad ahayd anigu markii iigu kaa dambeysay gudoomiyaha xaafadda andhashbaari communityga inaa ahayd baan anigu ogaa ma aqaan hadda in laga ala iyo kulli xaal ninka la yiraahdo kadib marka meesha iiga wad odayga way kasoo doonteen iyo islaanta iyo wixii waa la yima kadibna way israaceenoo macnaha xaggay ugu yimaadeen isagoo laba wiil wata waa meherka halkaas ka dhacay waa gartay meherka marka axmed nuur waxaa lala hadashiiyey ninka la yiraahdo cabdixamiid oo ah kamaal aabihiis caadi ula hadlay inuusan waxba ahayn oo been u sheegana waa arka markaas markay wada hadleen wuxuu ugu jawaab gabadha aan ku siiyey gabadhayda maba ahaynba cabdixamiidkii laftigiisii baa afcadaa lagu yirahaa iyadoo lala taagan yahaa la yiri jaa cabdixamiid muumin waxaa u addaatay waxaan in wax ka jir aysan jirin وعبدل معناها عبد الحميد وين عبد الحميد اللي راح marka odayga Abdul ah waxa loo xaqiijiyay oo ogaaday dhalinyarada markaas meesha joogta dhalinyaro taqaan Cabdixamiidna taqaan anigana taqaan Axmed Nuurna taqaan isku xaafadeen oo ganacsi waaweyn kule afkooy laakiin markii waxaas dhacayeen iyagu ma goobjoog kama hayaan ma ogeyn waxaas warka ma hayaan wax luqluq loo galay buu ana waxaan sheegay taas wiilasha marka Cabdixamiid waa naqaanay على كل عضو مركب واحد حقيقة صدي ويسوى عي ومغلوب الأرنك كليبك براه بالشدة قال أنا أقول واحد قلي براه بالشدة قال عبد الحميد واحد يصاد دري يوحي عن كودا هذا اللي نلش شيء كميدا من المقل يعني واقرت هذا اللي يصاد دري والله أنا ميل قلي بالك الله انستغرام كله هاني على اول تشبيه اني ku jiraan macquula oo wixii jabiyay ay banaanka u firdhiyaan waxaan maana aniga Cabdisalaan aana mugud kilib ama ku saabsan ninka la yiraahdeen Cabdixamiid ama la ii soo diray ama aan ku wada hadalnay 10 kilib aan ku wada hadalnay Cabdixamiid aan haya waa gartay weliga isku madina qof wixeeda aan gudbiyo ma fahanto marka adigu muuqaalka marka adigu ku qancinayay aad iyo aad kuwa kale ugu qancinayaan haya وتربض وأفعد يقول شيئا ويسوع وحوي مرتك عبد السلام ها أرنكا وأنواع عدادي أنا جانا وأنقول عدي هذه جانا وأقول عدد بيننا لو شيء وها إلى الصعدة شيء قبل المهرية وهذا كوفيدا والتماشى فديه
cabdisalaan sheekh cabdisalaan isna la dhahaa haye sheekh cabdisalaan iyo aniguba hadda waxaan wici rabnaa kamaal waxaan u sheegi rabnaa in waxaan wax ka jira aysan jirin maadaama anagu waalidka aan xaqiiqsanay waa gartay waa waceen waa la hadleen markay la hadleen kabacdi haddana igu soo celiyeen labadoodii haye waa u sheegnay dhaheen wiilkii waa naga qabta taleefonka in meherkan waxba ka jirin sheekh cabdisalaan xataa dhagihiisa ku dhibciyey waana loo sheegay waana naga yeela wiilkeenna wixii youtube-ka ku jirana oo meherkaas iyo wixii kala aba waxba kama jiraan ka saaraan yiri waa uuna ka saaraa yiri intaas uu sheegay cabdixamiid iyo shiiqo oo agtiisa taagan oo asna markiisa ila hadlay waa gartay intaas markay dhacday kamaal inta daawataa taqaana habeenimo ka saaray wixii clip meeshaas ku jiray ha waa laga wada kii Istanbul soo dhaweyntahay kii meherkii wixii ka sii qaaqaatay mooga laakiin asaga kanaalkiisa automatically waa ka saaray waa gartay halkaas horta baashi oo meherka waa meherka markaan usoo noqdo meherka halkaas horta ku dhamaaday xaaladiisa waa gartay cabdixamiid waa nin aada u fiican abti kale asna jooga ehelka ninka la yidhaha kamaal si fiican contact u laana waa gartay odaga abtigiisa oo maraykanka jooga abtigiis kale oo norwaydan jooga kulli waa dad macnaha maasha allah aada iyo xaqiiqda qofka bani aadanka macnaha lama dhawano qaaladaa la sameeya waxbaa la sameeya dadka la isma wada raaciyay waa sax ehel wuxuu kasoo jeeda aada aniga u fiican aan dhihi kara inta aan la hadlon ka arkay aada iyo aada contacti aan wada lahayn waan wada xiriiri jirnay kaliibkan hadda uu soo dhiga oo wiilkayga yar wiilkaaga yar uu soo dhiga meesha sakariye kaalaab kaliibkan hadda uu soo dhigay oo soo dhigay cabdixamiid contacti fiican aan leenahay hal mar aab geeskayga waxay soo istaagay raalla hal mar wax yar laabis ما gabadh yartaa kaar hal marsi kaar bay rabtaa inta muuqaal iska tag marka uu soo dhigay 4 su'aalood haye waa wax macnaa cajal wuxuu ka mid ma aabaheeda wax ka rabtaa gabadha bas la hadal waa gartay kaliibkan hadda uu soo dhigay inuu saas uu saa leeyahay miyaa inuu saa dhalma raba soo cunuga oo wejigiisa bombala saaroba uu caadi u soo geliyo walle cunuga wejigiisa bombala saaraya oo ma ku jiraa ma uu daarin laakiin sawir ahaan u soo gelish haye kaasoo wuxuu ku dul qoray awowe yaa waxaan ha hilmaamin kan oo ku dul qoray waa sakriye anuu igu hanjabaa markaas muxuu marka cunug ka rabaa ma anuu igu hanjabaa macnaha ogow kanaan haya camal muxuu ka hayaa marka muuqaal ka haya waa muuqaalkaasaan rab bulshada markaan u caddeeyay haye muuqaalkaas wiilkayga laga duubay waxaa ka duubay qof anigu aan aqaano kamaalna yaqaan shacabkuna yaqaano waa hooyadii waa saas waa garta waxay ka mid tahay gabadhaanu markaan ogaano macnaha ehelkii iyo meel walbaba in gabadhaani sixran tahay oo sixir hayo okay in sixir hayo meesha nooga caddaatay kaliibkaas hortahay waa gartay kaliibka 4 su'aalood aa la weydiiyaa wiilka afartaba waa uu ka jawaabaa laakiin isagu wuxuu yidhi aabihiisaa ka duubay aabihiis aa ka duubay oo nin cunugiisa kaliib ka duubaya sheeko ahan aan ka maqlayo ma fahamti waa gartay laakiin bulshada sheegaysa qofka kaliibka duubay in aabihiis duubay iyo in qof kala duubay qofka su'aalaha weydiinaya soo lama arko ma qofkaasaa ka duubay mise qof aan ba joogin waa wuxuuba ka mid yahay muuqaalkaas gabadhaan inuu sixran ninkan waxyaalaha caddiihayo ka mid haye haddii uu rag yahay haye kaliibkaas ha daaro ummaddana ha tus waaya kiliibka anigu horta waa arkay kiliibka waxa weeye waa kiliib cod ah oo maxaan kuu ahay hooyadaa meeday cunuga su-aalo noocaas oo kale la weydiinayo wey oo la yaab dadka ha u daaro marka dadka ha u daaro sababta saasuu leeyahay gabadhaan gabar sixran waay runta markii la rabo xaqiiqdan la rabo sababta waxyaalaha ay ku kacaysa ma oga waa gartay marka ay soo bihee ma oga
gabadhan ilmeyga xaaskooda ilmeyga hooyadood ah aad iyo aad qof ka ciyaal jeclaa waa yaryahay dunida si ciyaalkeedu u jecleed maantana waxay mare ciyaal ma dhalin inay dhahdo ma oga macnaa inay dhaweyso hooyadeed aad soo wacday taleefonkan ma aqaanay tiri waa hooyadeed ayada dhashay marka qofkan ficilada oo sameehayo marka aragnay waxaa noo cadaatay qofkan qof sixran oo wax uu sameeyahay inaysa ogeyn ah muuqaal baa jira aniga nin ii soo diray muuqaalkaas ninku ii soo diray waa iyada oo waxay leedahay anigu ilmo ma dhalin waxay u waday baan u malaynayaa markaas inay cabdul u waday baan u malaynayaa muuqaalkaas inaa aragtay in kale maqaan muuqaal noocaas oo ay leedahay anigu ilmo ma dhalin oo keligeed ah oo hadlayso oo aan waxay video ah aan ahayne muuqaal mobile saa loogu duubay ah soo gaaray muuqaalka ma arag kulle waxay loo diray cabdulxamiid loo diray kulle waa isoo wada diriyey waxaan ku leeyahay gabadhan ciyaalkii inay dhashaa xataa ma oga hadda waa inkiraysaa inay maamo sharaf leh oo 5 ciyaal joogto oo ciyaal waaweyn u joogaan oo yaryar u joogo oo 23 jir ugu yahay 6 jir yar yahay u joogo ma oga maantali ma oga waa qof jug gaarto way hooyadeed ay inkiree aabaheeda inkiraysaa marka qof saas normal ma dhihi karo waxa ay sheegayana macnaha ma aha waxay ogtahay ma xaqiiqda marka la rabo famil ahaan iyo dad ahaan kulli waa tashan gabadha in quraan la saaro insha Allah biidnillahi alkariim waa lagu tashaday in ayada bal markaan lagu dadaala lagu tashaday in daawadeeda iyo waxeeda laga qayb qaataa lagu tashaday ninkan ujeed kale oo gabadhan ka leeyahay oo aan ahayn inuu ku shaqeysto waxay ogtahay mala gabadhan inuu inta meesha marba soo fadhiisiyo hadal oo yiraahdo ma gabar aan ciyaalkeeda aan ka warqan inkirayso aan ogeyn xasuusnayn inkir macnaha ma ka wada macnaha ma xasuusna aabaheed ma xasuusna hooyadeed ma xasuusna waxaan kamaal ahayn ma maqasho waxaan kamaal ahayn ma maqashaan ku kamaal una taqaan bis okay waayahay haddii kala ma laha haddaan usoo noqono aabihiis ninkan waalidkii iyo ehel buu leeyahay dadkii waa isfahmeen xagga ehelkii adiga kuu joogay iyo adigii iyo odayga waa isfahanteen adeeradii ciddii oo dhan waa wada hadasheen cid ninkan qabato oo tirahda war hadda niyahow waxani sax ma aha ma waayo oo ninkan macnaha la qabtaa waa su-aal fiican waay kamaal aabihiis eedadiis abtigiis adeerkiis kulligood waa ay la hadleen waxa ay la hadleen markii dambe fiidiyadii oo ka saaray meesha oo ku soo wada celiyay oo ku soo wada celiyaha waa gartay markaasay la hadleen waxa soo wacay odaga soo wacay way soo isla hadalna ayaan cabdulxamiid hadda fiidiyadii wixii meesha oo ka saaray ninkan waa ku soo wada celiyay waa gartay waxa la hadalno dhaha aniga eedadiis abtigiisoo Mareykan jooga la hadlo dhaha waa u sheegnay cabdi waa ka saarahu yiri ma ka saarin markii labaad aan ku celina ama maalmii labaad aan ku celina anigana telefoon igama qaban u dhaha qabahayo hooyadiis ma ka qabahayo abtigiis ma ka qabahayo ninkaas nin naga jeesto waa yiri cabdixamiid meel aan ka gaarana ma joogo afgooyaan joogaa Istanbul jooga waxba kama qaban kara maxaan qaban karaa dhaca Abdisalaam ani hadduu telefoonka gadan sida maxaan qaban karaa waa gartay waa su'aal sax ah way aad iyo aad ma waxba kama qaban waxba kama qaban kara xaqida marka la rabo marka kalimadan uu leeyahay cabdixamiid macnaha kalima kale looga qaado oo la duubay oo laga yeelay cabdixamiid aabiis way eelkiis iyo kulli wada contact aan leenahay usbuuc hadda wada hadlayna cabdixamiid ma fahant waa gartay ma aha nin macnaha aan ishandadna ama aan heerkaas ilaahay nama gaarsiin macnaha contact fiican leenahay qofka aan waxba maqlayn ee caasiga ah ee waxaan shilin inuu raadiyo leetahay oo gabadha maskiinta ah oo sixro jiran inuu marba meel fadhiis yar raba wallahi ku raadiyo waa asaga gabadhan maskiinta eed ma laha waxaan kamaalayn ma maqasho hadda waa wuxuu ku xiro waay number ku xiro xaqiiqda marka la rabo waxaan waa calaamadihii lagu yaqaan waa bahalkan
adigu waxa aaminsan tahay inay tahay sheekadan sixir qof walbo dhageysta gabadhaas hore oo qoy jiray qof kasta oo hani muumin qoy jiray oo waxa hadda ay ku hadlaysa dhageysta gabadhaani waa la sixray birma waxa la soo baday waa la sixray kelmadda koowaad ay ku sheegay qof walba asal lagu ka jiray ku soo waca laana ma qof lagu qoy jiray waa dhacdhaciyo ma lagu qoy jiray ma hooyo edebla oo laga yaqaan magaalada hadiya hooyo sharaf leeyahay marka qof sharaf iyo wanaag ku barata maanta marka aragto soo si kale u hadlay adiga qofka xataa waa dad waxay lagu ka jareen dad waxay xal waa seexa weyn marka waa maqalnay waa seexa weyn gabadhan waa sixran tahay lagu wada celiyo bismillah marka waxaan umada daawata fiidiyada iyo tubida waxaan leeyahay gabadhaasi waa xanuunsan tahay waa gartay ha u duceeyeen Allah caafiyo in Ilaahay caafiyo ha u soo duceeyeen waxa ay soo bihay ma oga qaladkeeda maaha sababta anagu marka hore anaga dhan waa wada xanaaqnay macna ehelkeeda waa xanaaqay macna waa xanaaqay laakiin waalid waxa soo bi kara ma jiro waalidku waa dheeg gabadhu waa dheeg kartaa ninkeyga waa nacay haye wax baas la baas waa gartay la gabadhu ma dheeg kartaa ilmaheyga ma ilmo ma dhan ma dheeg kartaa hal darigi ma dheeg kartaa wax macquul ma waa impossible waxaan caadi waa Cabdisalaanow waa kelmadda ugu yaraan reer Yaafle magaaladan hadda joogo ugu yaraan 60 qof baa iga soo waxday because aniga lambarkaygii Sweden markaan imi baan sitaa ma bedelin Yaaflena waa magaaladeedii anigu aan deganaa wallahi xalay 12 habeenimo nin baa ila hadlayay macnaha qof kasta wuxuu la yaaban yahay halka kelmad oo dhinaca ilmaha ah ما شاء الله إلهي با أبدك سيي أو ولا شيء الحمد لله waxaan aaminsanahay أنا مؤمن إن عيال كذا أنا قلت جيجو dad saaxiib ah baynu ahayn oo magaalada wada degan hanina gabar wala shay ah markii hore oo muuqaalka anigu aan duubayayna waxaan lahaa Cabdisalaana waa walaalkay hanina waa wala shay caruurtuna waa caruur yar yar oo aan waalid u ahay hani haddaanu reer Yaafle ahayn asluub akhlaaq gabar shaqaysata oo meesheeda u shaqo tagta kadibna gurigeeda iyo reerkeeda joogta oo caruurteeda jecel baan anagu dhan ku naqaanay markaantina waa u nahay laakiin waxaan goormuu ku bilowday baa isleedahay oo ilaa goormaa la taabtay baa isleedahay wallahi nadara waa sanad iyo barkoor 2 sano ku dhawaad waayo ana waxa oo gabadhan ay aan ku aragnay dabeecadahan xanaaqa iyo dadkii macnaha ila hadli jirtay yaraysay gaabiday xiriir dadka dhan ay gaabiday waa gartay aniga kontaktiga xataa waa gaabiday ciyaalkii kulli ilaa markii dambe xogaa quraan aan saarnay markii dambe inaad waa baxa xataa macnaha in bal ay soo degta xataa u baxda anagu xataa waa bixi kartaa gabadha walaashii bal hawo ku soo qaada waa gartay daaris marka waa muddo sanad iyo bar ama 2 sano ku dhawaad way muddada kale lahayn dabeecada balaad xataa taleefanadan ay waxaan xataa dadka xiiseeya ma ahayn waa dadka waa xataa ma ahayn dadka xataa social media daawada ma ahayn waa sanadii iyo 2 sano ku sheegay ay bilowd inay macnaha ay taleefan smart ay ma xiisay jirin xataa dadka xiiseeya xataa ma ahayn dabeecad lagu yaqaan ah Cabdisalaanow waxa kale oo jirtay cod isoo gaaray baa jiray oo codkaas wuxuu ka yimi kamaalkan hooyadiis waxaana loo soo diray dhinacaan waxa fadhida kaamarada inaan ku qabano ma rabno laakiin waxa fadhida Najmo oo gabadhaadiya Najmo hani baa ku dhashay Soomaa waa gabadha curadeeda haye goormay gabadhan dhalatay ta ahaan hadaan ku weydiiyay wallahi 98 hani baa ku dhashay marka gabadha curadka waa gabadha curad ahayd okay marka gabadhan muuqaalka codkaas yaa loo soo diray kan Kamaal hooyadii codka Kamaal hooyadii ay leedahay hooyada la hadal ha naga qaado wiilkayga ha ka qaado muuqaalkiisa horta Kamaal hooyadiis iyo ehelku contacti anigii Najmina lahaayeen labadeena waliba Kamaal hooyadiis badanaa Najmi ay la xiriir jirtay oo kaliibka hadda cunuga laga duubo anagu ma ogeyn haye afgooya loo diray waxa soo diray waxa oo Najmo soo diray waa Kamaal hooyadiis waa gartay ma fahantay codkan ay leedahay
naga ceshta macnaha youtube-ka waxaa u saaran sawirkiisa ها فيسبوك واتسابك ها waxaa soo usoo dirtay najmo ii sheegeen hooyadiis kamaal hooyadiis marka najmo waxay u dirtay hooyo u dirtay hooyadeeda u dirtay wixii macnaha suuqa lagu daadiyey oo instagram-ka laga daldalay allahu yaclam qof jabshi inuu isugu jabiyo xataa allahu yaclam ma sheegi karna inuu kuma dambaabi karo waa gartay waxaasuu galay laakiin waxaa loo soo diray ugu horreeyey najmo aabiya yaa kuu soo diraaday كمان هذا كونتاكت كلام اللي ده ولي ماي مركي او فيديوش او لا صادق ها انستغرام كما كاس صوبع لو مر كمان ليس صوبع marka waa leeyahay waa contact waa la sameeyay gabadha markaas ku soo wacday oo ku soo dirtay muuqaalka iyo codad kale waxay ku soo dirtay ما يعقب يصدرين ويصوب علي من أنت هاوري عدكي وحال ماشي كجرا حدا هاوري عدكي ما أقل ماشي وحقليه لكن أكون في ذكرى مركز حيتي هاوري وقتوقع هو إذا أنا بعيشه أما كحدا هو إذا قالت كلام مسكالو بيل كان حتى قالت كولي هاي هذا قفل أيكو إسقوق يسوي جوكان لكن هالقف يالا ساني قالتك كمان قالت كولي هاي وحن أنا لحد لاي مر واتساب وحلا ودوي وحلا وشيء ويقولوا ما يسوي رمت مركي ويلك مرة رمت وشيء ونديده هو إذا قاعدين مركز تهلعيون هذه ما يلا هذا كمان ها كمان مرة أنا لهذا كول أنت مركز واحد أوغاني هي محاك تري محاجة هاي ميكروفونك واحد مقول وين كمان قاعد خلاصة maxaa kamaalow hooyada maxaa lahaa hooyadii waaye gabarta naagtana la joogtid anaana weyn markaas wuxuu dhahay curid marka videosha waxaan hooyada ka duubta meesha ma ka bixi kartaa maadaama hooyaday naag la qabo iyo ciyaal ay leedahay inta ceebtan ugu badanin marka muxuu isoo qoray maxaa lahaa ani qofka anaa qabo anaa aqaano beentani iga jooji beena sheegaysa maxaa dhaha been ma sheegaye qof oo kusoo wici karto meeqa qofa kuusoo qorto ku dhahday naagta waa naqaanaa ciyaala leedahay marka waxay dhahay maxaa lahaa qofka kusoo diray aabaha kusoo diray waa ogahay hanina ma ku dhalin marka xadaa hani way dhashay adina wax ma ku ogid hadda qofaa barato waay hooyadeena way tahay hooyadii markay tahayna anaa og hooyadeena tahay maxaa lahaa baviisyaal badanna waa hayaa cadaymo badan marka waa blokeeyay miga telefoonka markaas miga qabana block isaare blog isaare waxay dhahay aabaha duqa u sheeg inuu waxaan dhan inay dhinaciisa ka socoto waa ogahay beentan iga joojiya adiga inuu cabsalaan aabaha yahay wuu og yahay laakiin wuxuu inkirsan yahay in ay hooyada tahay cajiib waa wax cajiiba waa aad wax cajiiba ma fahanti waa arrin aad cajiib u ah haddaayta bilowgana waa sheegay ana horshayn 30 sano isqabna haye waa meerkii gabadhan ma Sweden ku dhalatay mise xagee ku dhalatay najmo iyo maxamed waxay ku dhasheen Soomaaliya ku dhashay saddexda kale isbitaalkan yafla ku dhalatay kuwa ka dhintay oo kale xagee ku dhashay Soomaaliya ku dhashay saddexda saqiirta waa gartay waxa ajaayib ciyaalkeena dhalay waa sheega asiga sheegay umada daawaysa waxaan rabaa inaan u sheego 25 sano horta hane ilmeyga hooyad aan qabay ma fahant waa meerkii ugu horreeyaan sameeyo waa gartay ma sameyn meer kale wali waa kii kuugu horreeyay kuuguna dambeeyay isaga laa waa gartay nolosheeda meer kale ma gelin on kaas ka ahay waa gartay marka ma fahmin koo badan waxaan arkaa ciyaalka waa la sameeyey ana baan waaye bebe baan intay socda iska yar baan intay socda intaas waxa iska ilaalihay macnaha bal cagaha u dhig laakiin hadda afka kama qabsan karo gabadhan gabar jiran oo la sixro waxa ay sheegayaan ogeyn waay inaan marka bulshadan intay ku sii tarax tagi lahayd aan hadlaan ku qasbanado sababta maanta inaan ku hadlo ugu qasabto laba bilood ay socdeen waxaan kelmadteeda lagama maqal maalin koowaad soo fadhiisan kare ma fahant waa gartay laakiin waxaan arkay wixii xataa ka sii baxayaan hadda been fakatan waxa la runa noqotaa hal beenta tirada ka baad lagu celceliyo run bay wakaataa runa noqotaa ninkan waxaad moodaaba nin soo hadlay iyo wax gabar jiran oo maskiin oo wax sheegay aan ogeyn inta soo fadhiisay oo wuxuu rabay sheega
wax allaala wuxuu rabo sheegay shilinkaasoo ka raba asoo ujeed kale kama laha ujeedo kale kulli haba yaraata ma jirto inaad xaqiiqda markaa rabto wax walbana waa ogyahay wax walba inaan ciyaalkan dhashay in la qabo kulli asagu waa ogyahay waa gartay familkiisii dadka dhammaan waa u sheegay aabihiisa u sheegay adeerkiisa u sheegay abtigiisa u sheegay wax uusa ogeyn wax walbuu sameeya waa wax uu kas u sameeyahayo iyo gabadhaas maskiintana sumcadda ka dilo oo ku dheeldheelo ujeed kale ma laha ayadu qof waalida 10 marna ku celiya hana ciyaalkeeda waxa ka jeceshaa male ciyaal YouTube ciyaalkeeda inay maanta wax soo dhigto aad lagama yaabo laakiin ma oga waxay soo baheed aad iyo aad aan ku xuma marka waxaan dhihi lahay tan iyo gabadhaas maskiinta lagu dheelayay iyo waxaan beenta iyo caasinimada dadka waalidkiisa uu dhageysan waayey iyo wax walba qof walba runta u sheega oo u dhibsahayo uusan dhageysahayn horta gabadhaan ehelay leedahay daday leedahay waa la iskala xisaabtama xaqiiqo waa taas la isku daymayo waa wax lagu wada xisaabtami doono ama maanta aad ama berri aad saameynta ay yeelatana asaga mas'uul ka noqohay ninka mas'uul ka noqoha asaga ma faham waa gartay waxa kala dhila dadka youtuberada ayagana in gabadha waxa ay sheegaysa ma oga xaqiiqa gabar sixran waaye qofku markuu sixran dad la sixrada Soomaali uguma horeyso aad u badan yihiin uguma horeyso qofku wuxuu sheegaa ma oga markii qofkii sixran waxaan ma yaqaan qofkaas aad iyo aad qof kale ehelkiisa ma yaqaan caruurta contact ma la leedahay hadda maya ayagu hadday waan waa ka qabahay inta markay joogto ayagu hadday waan waa ka qabay hooyo caadi waay waa hooyo waa dhahay markay la hadlaan hooyo waa dhahay xalay waxaan arkayay in iyadoo soo baxday oo diyaarad soo raacaysa camal inta hadda timi wax xiriir ma la samaysaa abti maya aba ma la shadi okay maya lama hadlo adiga hadda la hadashid maxay ku oranaysaa wallahi ana haddaan la hadlo waxa ku saabsan YouTube-ka iyo Kamaal haddaana kala hadlan caadi ila sheekaysay laakiin baabkaas haddaan soo qaado macnaha dhag waa loo kacaabo qof qataaran waa meel ay ku qataarantahay ciyaalka waxa soo qaba ciyaalka saa u sameeya haddaan tan telefoon aan ka waca dhaho waa yeeli gabadhaas laakiin haddaan ku soo qaado baab kambo habarteeda kat gabadheeda haday ku soo qaado baabkaas bas waay marka baabkaas kala hadashay maxay ku dhahdaa ma gal waa dhibe macnaha wax dhibay waxa ka dareemay inay dhibaysa ka dareemay ma fahant marka dadkan YouTube-ka ka hadlaa waxaan dhiilaa waxa sheegayaan iska hubiya xaqiiq maanta inaan sheegan halkaan u fadhiistay ninkan beenta uu la gebgeb leeyahay iyo dadkaan u baxshay macnaha hadda anna waa kan ayaguna beenta la gebgeb leeyihiin in maanta xaqiiqda la ogaado waxaan ka soo fadhiistay waa gartay hadda laxal iyo beenikii rabaa sii wato laakiin xaqiiqdu taas waay waxaan kaloon ku ganaanidi lah gabadha maskiinta walaashiina hal u soo duceeyay ilaa inuu sixirkaas ka furo ummadda ehelkeeda iyo waxeeduna insha Allah waa la tacaali doonaa waa sida ugu qurux badan ula tacaali doonaa bidniil al-karim laakiin soo duceeyay ummadna Maxamed midda kale in sheegan waxay tahay waxa ciyaala suuqnimada iyo waxa caasinimada iyo wax walba madax adeeg isku darsada waa cunugan way asaga focuska saara sixirolaha weyn hadda cid focus saaraysan asaga sixirolaas focuska saara inta diilahay gabar maskiina waxa sheegaysaa sixirna waxa ay sheegaysaa aniguna ku mashquuline sixirowga gabadha sixirada ku shaqeeyahay meesha soo fadhiisay ku mashquul asaga intaas rabina uga baxo waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waalidka iyo barnaamijkan inay ka hadlaan oo ummadda u cadeeyaan iyo barnaamijkan marna isku dayaan mise waa su'aal aad iyo aad u fiican shalayahan hooyadeed aabaheed walaalaheed kulli aan halkool isla wada galnay taas runtii waa isku canaan shalay in gabadha laga sidii la moodo macnaha qof walba oo goonidiisa uga xanaaqay waa gartay qofii inta la moodo qof walba ma waxaas soo biday oo ka wada xanaaqna kulligan waa gartay inay shalay qalad ahayd kulligan waa iswada tusin in gabadha garabkeeda la istaagana ku tashana shalay ana cabsalaana saaka hadlo bilaabay waa gartay kale insha Allah waa soo hadli doonaan waxaan rajeeyaa insha Allah
aan aad iyo aad u rajeeyaa macnaha in Kamaal familkiisi iyo familka gabadha oo wada jira sababta Kamaal familkiisa aabihiis hooyadiis kulli dad waxaan raali ka ah maaha aad iyo aad raali kama ah waana u sheegay ninkana waxba ka maqli waayay in ayagoo wada jira familkiisa iyo familkeedu insha Allah kaliya in soo dhigi doonaan mar dhow rajeeyaa bidnillah al-karim hadii ilaahay taas bulshada ummadda Soomaaliyeed loo tii ugu dambeydana inaan taas soo banaabalana insha Allah hadii ilaahay markii Kamaal familkiisi iyo keedii isla soo fadhiistaan waxaanay baadil yihiin ay sheegaan hadda Soomaaliya waxay sheegayaan laga rabaa marka taasna waa bal inaan soo bidnillah al-karim ma dhaqan waxa jira Soomaalidu niyo social media hadba qofkii ku dambeeyay iyo wax sheeka noocaas iyo hiyiraac iyo nidaamyo badan oo Soomaalida qaar ku badan baa jira laakiin marada hadii waxa la yiri hadii fool timaado guda qarsi ma jiro sax xaajadu waa dhan tahay aad bay u dhan tahay inaasan ku soo gabagabeynayna maxay kula tahay wax kale oo ku haray oo aad isleedahay waa dhigi kartaa wallahi waxaan yaaro kala ma jira in gabadhaas loo soo duceeyo miskiinta in loo soo duceeyo intaasan ku ganaanudi lahay ana aad iyo aad maasan tahay guriga maanta ugu soo boqotan oo ku faraxsanahay aad iyo aad magaalada deganaa jirtay xaqiiqdii markaan u noqdo aniga markaan wadanka soo galay dhinacaas waxaan ka soo galay dhinacaas koonfurtan ka imi maalmaan ka imi sharciga markaan qaadanay kadib ayaan xaggiisan u jahjahaynaynay adrees baan soo qaadanay magaaladaana nimi dadkiina soo dhaweeyey oo magaalada nagu soo dhaweeyey xaafadan Andashbaari khaas ahaan hani Caasha Dhimbil Sano Ubax Araale dad badan baa kamid aha oo hebel iyo maanta hadaan rag iyo dumar tiriyo aan la yaabaysa adiga kamid aha macnaha qof anigu ma ahi cirka ka soo dhacay ee qof xaafadii iyo dadkii ka warhayay baan aha marka taasna waxaan leeyahay waxaan arkayay waa iyaga muuqaal gooniyan ka sameyn doonaa laakiin dad YouTuber ah baa jiray oo qaab maaragtay heeca ahaan ah u hadliyay iyagana waxaan rabaa heeco inaan gooni uga hadlo laakiin anigu waxaan ahaa nin xogogaala ilaahay marka waxaan ka rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed hal codsiyaan wataa hani gabar walaashay guri buuxa ku jirtay ubadkeedii dhexda ugu jirtay odageedii la joogtay sharaf labay ahayd haddana waxaan ilaahay ugu rajaynayaa bal in ilaahay sidii sharaftii aan shalay ku bartay in maaragtay ilaahay dib ugu soo cesho caafimaadkeeda inay u soo celiyo aynu u ducayno insha Allah ta'ala ilaa haddana sharaf iyo karaama leedahay walaashay cisi baan u hayaa karaamaan u hayaa ma aha aniga inaan maagayo waxaan hal mid ku darsanayaa iyadoo ka hadlaysa Sweden baa imaanaya konta kuba ku sheeka noocaas aniga waxaan ahay nin social media caanka ah shaqadayduna tahay YouTube-ka una haysta macnaha fasax u haysta ogolaansho u haysta oo Sweden ka diiwaan gashan baan ma ahi macnaha waxa laga yaabaa inay dad isweydiiyaan qof mushaharkiis baan waxaan u bixiyaa cashuur laga qaada macnaha ma ah iga afaan laakiin xaqiiqada dhabta dad badan baa og 15,000 oo kron waa sax macnaha 15,000 oo kron dadka baska wada bay xaasil ugu soo hartaa baan u malaynaa shaqo walba waa ogolaansho leedahay ogolaanshaga cashuur baan bixiyaa ma aha aniga cidna ina uga haybisanaya ma aha walaashayna hadalka ay lahayd isaga ku soo yiri wadan sharci baa joogta laakiin wadanadani waa wadanadii laga keenay qofku inuu xorriyatul qowl ka hadli karo waxana anagu falanqayn u baan meesha u fadhinaa waaba garanayaa de anigu wixii xaq lagu leeyahay iyo waxaan xaq lagu leeyahay marka taasaan ka oranayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa marka walaal in ilaahay sidii khayr uu yeelo oo gabadha walaasheena ilaahay uu soo habeeyo saaxirkaasna in aabihii maqli waayay sixiroolaha aabihii maqli waayay sixiroolaha abtigii maqli waayay sixiroolaha hooyadii maqli waayay sixiroolaha ku andacoonaya wax aan jirin ku andacoonaya in ilaahay bulshada Soomaaliyeed oo waliba reer Istanbul xataa inay arkaan bay ku fiicnaan lahayd bartaan bulshada ay ka bartaan aad iyo aad intaas baan ku soo gabagabeynayna Cabdisalaam walaal aad baan kugu mahadcelinayaa 100% waxaan leeyahay gurigaaga sida quruxda badan aanu ugu soo dhawaysay aad baa u mahadsantahay intaasaan ku soo gabagabeynayaa waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh nooli kulanteed inagu dib baynu isugu dambaynaa reer Laakaha Media